ururka al-shabaab oo inta badan ka soo horjeeda jiritaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa xalay habeennimadii saqda dhexe weerar gaadmaha ku soo qaaday fariisin ay ciidamada Jubbaland ku lahaayeen inta u dhaxaysa deegaanka Luglow iyo Yoontoy oo ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sida uu xaqiijiyay afhayeenka howlgallada ciidamada Jubbaland Xasan Ciraaqi ciidamada Jubbaland ayaa sameeyay iska caawin taasoo markii dambe keentay in ay ka guuleystaan kooxdii weerarka soo qaaday afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ee xalay la soo weeraray ay guulo ka soo hoyiyeen dagaalkii ay la galeen al-shabaabkii gaadmada waday halkaasna ay ku dileen laba ka mid ah mid kalena lagu soo qabtay nolosha kadib isagoo dhaawac ah markii ay ka carareen haddana lagu dabiibayo isbitaalka gaarka ah ee ciidamada Jubbaland xalay saqdii dhexe ciidamada Jubbaland goobo ay fariisin ku lahaayeen oo runtii magaalada Kismaayo kaga beegan muxuu qaybtan waqooyiga oo waxa weeye ciidamadu halka ay muddo deganaayeen waxa soo weeraray nimankii cadawga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayay runtii ciidamadaasi waajibaad buuxday guteen cadawgii soo weerarayna fashiritaan aad iyo aad u xoog badan bay u geysteen khasaaraha na soo gaadhay ay ciidamadu ay u geysteen cadawga Soomaaliyeed iyo cadawga Islaamkaba waxa weeyaan muxuu ahaa laba askari oo askartii maaragtay cadawga ahayd halkaas waa lagu dilay mid dhaawacana waa la soo qabtay kii dhaawac ahaa waxaan u malaynayaa inay saxaafadu ay muxuu ahaa muuqaalkiisa aragtay wuxuuna hadda ku jiraa gacanta dawlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka waxa weeyaan ku shaqada leh arrimahaas meel isbitaal ah oo maaragtay hadda lagu daweynayo uu ku jiraa runtii waxa weeyaan barnaamijkaasi si guul ah ku soo dhamaaday ciidankuna 24 saac wuxuu u taagan yahay inuu ka difaaco ummadda Soomaaliyeed nimanka dadka dhibaateynaya habeenkii xalay ahaa ciidamada Jubbaland guulahaas ay gaadheen haddana waxay heeganka ugu jiraan maalin iyo habeenba sida ay uga ilaalin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed ummadda dhibaateynaysa ee canaasiirta ee runtii waxa weeyaan balaag listiga geliyay ummadda Soomaaliyeed nolosha kala dagaalamaya inay si bini'aadanimo u noolaadaan kala dagaalamaya arrimaha noocaasna wax loo dul qaadan kara ma aha ummadda Soomaaliyeed waxaan is leeyahay siday nimanka isaga qaban lahaayeen qof waliba inuu ku fikirayaan rajeynayaa ma ahan markii u horeysay ee ciidamada Jubbaland ay weerar noocan oo kala ah kala kulmaan ururka al-shabaab al-shabaab ayaa goor hore sheegtay in bisha barakeysan ee Ramadaanka ay kordhin doonaan weerarada ay ku qaadayaan xarumaha kala duwan ee dawladda iyo maamul goboleedyada hoos yimaada